fadhigii golaha guurtida Somaliland oo uu shir gudoominayay gudoomiye ku-xigeenka koobaad Sheekh Axmed Sheekh Nuux Furre oo uu dhinac fadhiyay gudoomiye ku-xigeenka labaad Saciid Jaamac Cali ayaa maanta waxa halkaasi ka soo xaadiray 44 mudane waxaana ay halkaasi dood dheer oo ay ku kala aragti duwanaayeen xildhibaanadu waxa ay halkaasi ku ansixiyeen xeer lambar 20 farqadiisa 22aad xarafkiisa 20aad kaasi oo ay sheegayay in doodaasi ay ku qotantay in golaha deegaanada doorashada la filayo dalka in ay ka dhacdo lagu doorto habkii loo dooran jiray ee calaamadda ahayd iyo in loo sameeyo number lagu doorto xubinta golaha deegaanka u tartamaysa doodeer dabadeed waxa ay xildhibaanada golaha guurtida Somaliland isku raaceen cod aqlabiyada oo 40 mudane ay u codeeyeen in loo codeeyo xubinta golaha deegaanka ee doorashada la filayo calaamad taasi oo asumada kaliya dadku inta badan ay garanayso 40 mudane ayaa u codeeyay in calaamad lagu codeeyo halka 2 mudane ay ka diideen hal mudanana ka aamusay gudoomiyuhuna aanu codeynin waxa ogolaaday in lagu daro astaan oo mudanaha deegaanka isu sharaxaya loo sameeyo astaan u gaara waxa ogolaaday 40 mudane waxa diiday oo yiri ha loo sameeyo London 2 mudane waxa ka aamusay hal mudane gudoomiyuhuna ma codeyn xeerka wuxuu golahan kaga ansaxay 40 mudane oo ogolaaday in astaan loo sameeyo